ما شاء الله تبارك الله أصحابتي قالقة كسو دوادا ماسكي عجيب أو تنتادا سفي عن كوغو نفقينايو ججبك كا إلالينايو سيدو كاليتانو كو بحينايو وادك مقصودي دونتا فضلان داو فيديوغا بلا ولاية دمات مادساني أصحابتي قالقة أن جعلها الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهدا إسكاله waxaan soo gaarnay haween kaleeto oo jimco ah in aan isku xasuusino sidoo kaleeto ku salinta nabigeena sallallahu alayhi wasallam ku sali xabiibkaaga allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad bismillahi al-fattah al-alim wassalatu wassalamu ala rasulil karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal ku soo dhawaada kuwiin headsom waan idin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtaan iyo xili walbo idinta waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad dhammaantiina asxaabta cusub asxaabta hore u joogtay dhammaantiina soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin booqashada channelka soo booqateen la jooga ay la joogtiin dhiirigelintiina like-tiina daawashadiina waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin inaa idin doone marnaba kama daalayi kamana caajisayi man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah mar walban waxaan idin leeyahay dhoola cadeyntu waa sadaqo qalbigana saaxiib ayay la tahay mahadsanid walaal haddaan ugu cusub tahay soo dhawow ayaa ku leeyahay haddaad isleedahay channelkan waad ka hesho aadna weli subscribe saaranin fadlan subscribe saaro sida video walbo oo cusub oo faa'iido leh aad u heshid gambaleelkana furo insha allah waa mahadsan tahay asxaabteyda qaaliga ah maanta waxaa noo wadaa maski oo tinta ah oo maasha allah oo aad ka heli doontiin haddii aad daa'imatiin natiijooyin aad iyo aad u wanaagsan hal ahayn laba ahayn aad ka heli doontiin insha allah biidnillaahi kariim wax walbo aan meeshan ku hayo waa waxyaabo faa'iidooyin aad iyo aad u leh ku jiro jeelal ayaan meeshan ku hayaa iyo saliid oo dabiici ah insha allah marka waxyaabihii aan u baahnayn ayaa gudagaleynaa waxtarkeedana waan ka hadli doonaa marka ugu horeeya meeshan waxaa ka haystaa waa aloe vera gel ama dacar aniga ayaa soo samaystay xabadda ayaan soo qaaday kadibna waan kasoo hoolay jeelka faa'iidada aloe veraha jeelkiisa faa'iidada oo tinta u leeyahay ayaan rabaa ugu horeyn inaan idiin sheego faa'iidooyin badan ayuu leeyahay waxaa ku jirta maado qaraar maadadaaseti bakteeriyada ayay dishaa sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga ah jeelka wuxuu ka caawinayaa tintaada in ay jajabkeeda yaraato yacni tin aan jajabeynin ma jirto hadday caafimaad qabto iyo hadday caafimaad qabinbo tinta dabiici ahaan waa in ay tinta daadataa wax yar laakiin tinta hadday tirada ka badato daadashadeeda tintaas caafimaad ma qabto laakiin in yar oo shanlada soo raaceyso waa loo baahan yahay ileen tintii oo duugta ahayd waa inay soo daadato oo midda cusubna mar walba ay soo dhalato marka sidaas darteed jajabka badan haddaad jajab leedahay way kaa caawinaysaa tintaadana maasha allah ayay kaaga dhigaysaa wayna kuu korinaysaa vitamins badanaa ku jiro mineraala ku jiro marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta aloe vera gelka keligiis xataa waad isticmaali kartaa meeshan maxaa ku haystaa sidoo kaleeto shea gel daraad ayaan soo qaatay sidoo kaleeto shea seed lahaa sidoo kaleeto mirihii waaye oo iscateeska aan usoo gelinayay jeel ahaan ayaa u samaysan kartaa biyo leh aan ku shubay kadibna sidaan ayuu noqday marka asigane maadaama ay ku jirto maado la dhahayo alyaaf maadadaaseti aad iyo aad ayay tinta ugu wanaagsan tahay tintaadana waxay kaaga dhigaysaa maasha allah wax walba oo jeel leh haddaad aragtid yacni ha ka labalabeenin horay yacni ka marso meeshan waxaa ku haystaa waa taxiin sisin waaye sisinta oo la shiiday oo sidaan loo sameeyey waaye insha allah ayadana way soo socotaa sida loo sameynayo laakiin haddaadan haysanin saliidda macsarada ayaad ku bedelan kartaa ama zaytul simsim haddaadan haysanin waxaad ku bedelan kartaa caanaha qumbihiisa ama saliidda qumbaha amaba saliid saytuun
intaas ayaa ku bedelan kartaa. laakiin midan aad iyo aad ayay u fiican tahay. sisinta waxay leedahay tinta ayay waxay ka dhigtaa way madooweysaa, xariir ayay ka dhigtaa. dadka qaliijiyiinta waxa ugu badan ee marsadaan tintooda waa sisinta. marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta. hadeertaan asxaabteeda qaaliga waxaan sameynayaa waan isku dardarayaa, garaafada lagu shiidaya aan ku shubayaa, waan soo shiidayaa, kadibna waan idin tusinaya. waxaan ku shubayaa aloe veradan waa dhowr xabo yaryariisa haystay. hadaa weyn haysatid hal xabo, hadaa jeelka caadiga haysatidna waxaad ka isticmaali doontaa 4 qaando camal. kan waxaan isticmaali doonaa xoogaa adiga roon. kana waxaan isticmaali doonaa inta ku jirto oo dhan. waxaa waaye qaandadan buuxdo iyo waxyar oo biyo ah ayaan ku dar. waa ujeediina u maleynayaa asxaabteyda qaaliga sida jeel u yahay. marka hadda waxaan sameynayaa qalaadadii ayaan soo qaadanaya. matana qalaadada ayaa ku shubaa. jeelka shia seedkii ayaan ku shubay oo jeelka ahay. sidoo kaleeto dacarta ayaa ku ridaya. waa ujeediin labadoodaba waa laba jeel oo aad faa'iido u leh. markay is helaanne faa'iidadeeda lagama sheekeyn karo. maasha allah tabaarakallah. marka ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay. dacarta waa sida baamiyaha camal ayada aad ay u dhareereysaa. marka hadda waxaan ku darayaa adiga wax yar. kadib mar walba markaa shiido haddana wax yaraan ku daraya ilaa inta aan rabo ee iiga noqoto asxaabteyda qaaliga. saas ula socda. hadda waa shiidaya. marka ugu yaraan waxaan u baahanahay adiga koob haafkiisa ama ilaa 10 qaando oo sisintaaniiti. marka waa soo shiidaya, isku soo laabanina asxaabteyda qaaliga. waa ujeediin steepkii koowaad ayaan shiiday. sidaan ayay noo noqotay. murahaas dhan waxaan rabnaa inuu shiidmo intii aan shiidi karno. hadday wada shiidmi waayeenna waxna inta kale waa iska miireysaa insha allah. haddana in kaleeto oo waxaan ku darayaa taxiinka amaba sisintii maankaal aan maleyna soomaalina la dhahayo. asxaabteeda qaaliga raali noqda. waa ujeediin ugu dambeyntii sidaan ayaa kusoo shiiday. inay kaamirada socotaa u maleynayay miiritaankii markaa bilaabaye, laakiin ma soconin. hadda saana u miirooyaa. ujeediin mid weyn haddaad caana miirka haysatidna waa ku miiran kartaa. sidoo kaleeto maro nadiif ahna waad ku miiri kartaa. qaandadan ayaa isticmaalaya. waxaan ka reebaya waa shiyaha murmurihiisa sida tinta hadhoodii markaa dhaqeeno ee noogu fududaato. bismillah maasha allah tabaarakallah. asxaabteyda qaaliga waa ujeediina u maleynayaa maskigeeni ama kareemkeeni ama nafaqadeeni waa noo diyaar. sidaan ayaan kusoo dhameeyey. intaaneti hadda aniga waxaan ugu talagalay 2 qofood. adiga waana ka yareysan kartaa. haddaa badantiina waad kasii badsan kartaa insha allah. alaabtaaneti qof walbo waa marsan karaa. sidoo kaleeta caruurta waa loo marin karaa. laakiin wixii 5 sano ilaa 5 sano kasii weyn ka yar waxaa laga yaabaa inuu xamili karin. inkastoo waxyaabaha dhan meesha ku jiraan dabiici ay yihiin, laakiin caruurta waxaa fiican markay 5 sano lugta geliyaan in tinta waxyaabaha dabiiciga loogu bilaabo. insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin. aad iyo aad ayuu u fiican yahay. marka sidee u marsanaysaa, waxaa sameynaysaa tintaada oo wasaq ama tintaada oo nadiif labadaba waad isticmaali kartaa. haddii aad nafaqo rabtid inaad tintaada nafaqaysid intaa markaa dhaqdid kadib. haddaad rabtidna inaad faa'iidooyinka tinta maaskiga loogu talagal dhan inaa heshidne waxaad u isticmaalaysaa tintaada oo wasaq kadibna waa marsanaysaa. kadib ayaad iska dhaqaysaa insha allah biidnillahi kariim. sidoo kale xitaa waxaa kuu fududaanayso tintaada inay sahal kuugu kala baxbaxdo. tintaada 4 qayb u dhig ama 2 qayb sida adiga kuu fudud. salka ayaad si fiican u gelinaysaa ilaa aad ku masaajay ilaa uu meesha
dhiigga dhan ka dhaqaaqo ee kugu bilaawdo hur ama cuncun insha allah biidnillahi kariim. haddii tintaada aad ay qaleel u tahayna waxaan kula tali lahay inaad isticmaashid caanaha qumbaha iyo saliid qumbaha inaad ku dul darsatid hadduu ilaahay idmo sida faa'iido badan ama difin badan tintaada ay u hesho oo markaasay qoyaan kugu filan ee tinta saas ku hesho insha allah biidnillahi kariim. haddii tintaada aad ay u dandareysan tahay waxaad marsan kartaa isbuucii 1 jeer. haddii tintaada caadi inaad nafaqaysatid oo kaliya aad rabtidna bishii 1 mar ilaa 2 mar ayaad isticmaali kartaa. haddii ay tintaada dhexdhexaad tahayna 2 isbuuc hal mar ayaa marsanaysaa insha allah biidnillahi kariim. asxaabteyda qaaliga ah waa haween oo jimco ah ha iloowin inaad ku salisid nabiga sallallahu calayhi wasalam. caruurtaada ehelkaaga kullina aad xasuusisid in ay nabigeena sallallahu calayhi wasalam ay ku saliyaan. hana iloowin inaad akhrisato suuratul kahf waxay kaa badbaadinaysaa fidnada masiixu dajaal iyo fidnada adduunka oo dhan. marka insha allah biidnillahi kariim ilaahay ha idin xifdiyo meel walba aad joogtiin. jazaakallah khayr daawashada ay daawateen iyo waqtigiina quruxda badan ay aad isiiseen. inta aan video lamid ah ku kulmeyno waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano allah.